aan ku bilaabo horta waxaan ku dhashay degmada Afmadow 85 kadib dagaaladii waxaan u qaxnay Kenya 92 Liboy tagnay kadibna xiriir dad waxaan ka bilaabay dugsi hoose dhexe halkaas ay ugu dhamaatay 2001 dugsi sare ayaan ka galay 2005 ay ugu dhamaatay 2007 waxaan u wareegay Nairobi oo aan waxbarasho u tagay waxbarashadii kadib gaarsan dib ugu soo laabtay aan waxbarashadii haddana wareega sii watay Nairobi ayaan ku laabtay jaamacadda halkaas ka galay jaamacadda kadib 2011 September ayaan dib ugu soo laabtay wadanka si aan ugu adeego bulshadeedii hay'adda cunada adduunka shaqo ka helaan Soomaaliya dib ugu soo laabtay marka Cabaasow baraha bulshada ayaan fiirinaysaa kay dad badan waxay ka hadlayaan nin horey qaxooti ugu ahaan jiray oo Dhadhaab ku sugnaa oo haatan xildhibaan noqday wallahi waxay xusuusaysaa qofka resilient siduu yahay nin Dhadhaab ku koray nolosheeda dabcan waad ka fikirtaa nolol saalan ma ahayn haddii aad meeshii fursad u heshay dadaan xilin aad wax u soo baratay dalkaaga aad dib ugu soo laabatay aad sanado soo shaqaysay hamigan uu jiro in aad wadankan adoo dhex joogo aad wax ka qaban kartid oo aad micnaha barnaamijkii fursad u heshay inaad xildhibaanadii ka mid noqoto wallahi aadan ugu faraxsanahay